بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وما صنتها كالقعل وإن سلام يا عدي إلى عبد قبشوبة وحاي ويديسي بدون كبرلمان كيوم وحصل صاري شالي بدونيها برلمان كان هذا وحصل صاري شني لا تنكي بشن ورقد شهر ما أنا سوي لي سفرون نيسه ومركب كوباد وتهيو وحن صو أفكاري impeachment-kii tuhumada eedeymaha madaxweynaha marka labaadna uu oranayo 7 bisha October ayaa wada hadal furmaya mucjisiya wax la yaab leeyahay hadduu gudoomiyuhu awood u leeyahay oo uu soo afjari karo impeachment-ka oo soo afjarayda waxa wada hadal looga baahanayo iyo sababta mataqaana wada hadalku u furmayo waxa la yaab noqotay anaga kaliya ma wax bulshada Soomaaliyeed ay la yaabto ka yaqyaqsooto ayay ahayd waad ogtahay 26 warsaxaafadeed baan akhrin waasilayaa idaacadda goobjoog meedihii aan la wadaagnay bay ka mid ahay inta dabadeed waxaan iyadana qornay qoraal isaga ku socda ogeysiinaynana dadka Soomaaliyeed ee khusayso oo ra'iisul wasaaruhu ka mid yahay ururada siyaasadeed ay ka mid yihiin baneeyaasha caalamiga ah ee Soomaaliya ay ka mid yihiin wayna wada gaadhay warqadaasaan intii warsaxaafadii ka dambeeyay soo saarnay maxaa idin qabsoomay markaan iyada u soo noqdo waxa isbedelay ma jiro ra'iisul baarlamaanku mufassir ma aha sharciga fasira waa gudoomiye baarlamaan wuxuuna gudoomiyaa golaha shacabka go'aankooda ayuu ku dhawaaqaa oo sheegaa oo kaliya waxa kale iyadoo la yaab lahayd isagoo oo bil hargeysa iska jooga inuu ku dhawaaqay inuu baarlamaanka xiray baarlamaankuna si loo xidho ayuu leeyahay iyo system iyo procedure loo maro marka arrin iska qaraway ahayd arrinta iyadana waxba uma dhimayso tallaabooyinkaas aan qaadnay waxa ay qabsoomay hadda warqadii dambe aad soo saarteen waxa ku jirtay 9 qodob mid qodobka 9aad wuxuu ahaa hadii adinka laftigiina inaad la tashanaysaan abukaatayaal kadibna aad soo bandhigi doontaan tilaabooyinka aad qaadanaysaan macnaheedu waxa uu noqon doonaa wada hadalkii markii hore aad ogoleedeen xitaa inaad meesha ka saarteen waa ma santahay wax sabab loo wada hadlaa ma jiro gudoomiyuhu hadduu isagoo aan filayno inuu beelelowsan yahay ama jabacsan yahayba iyo qoraal soo saaray qoraalka uu soo saaray qoraal jawaariyaysan buu ahaa markuu qoraalka jawaariyaysan mar hadduu ku sheegay in la soo afjaray impeachment-kii waxa laga wada hadlaa ma jiro waa soo afjaray hawsheeda waa wadanaa waana wadan doonaa way noo socon doontaa sharciga qaaymadeedii iyo wayaradeedii maalinkan maanta ah ayay noo soo saarayaan arrimihii sharci oo aanu ka dalbay waa la wadaagi doonaa isaga gudoomiyaha iyo baarlamaanka iyo bulshada caalamka waa la wadaagi doonaa marka qoraalkiini ma u gudbiseen gudoonka 9 qodob aad soo saarteen maalintii dhaweyd hadii aad u gudbiseen ma idin soo jawaabay waa ma santahay 9 qodob warsaxaafadeed caadi ah waxaan u gudbinay qoraal ka kooban 3 bog oo afka Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska labadaba ku qoran oo ra'iisul wasaaraha aan ogeysiinayno isagana ku socda lana wadaagayno ogeysiinayno bulshada caalamka ee danaysa arrimaha Soomaaliya maxaa ku xusteen marka waxa aan ku qornay waxa ugu muhiimsan inuu gudoomiyaha baarlamaanku interpretation ama fasiraad ku samayn karin dastuurka oo hay'ado xilsaaran baa jira oo garsoorka la yiraahdo marka waxay ka dhigan tahay inuu aqoonsanayn garsoorka inuu baarlamaankii kala qaybiyay inuu baarlamaankii xidhay oo uu albaabkiisa laabay oo uu dib u furmay waana wax dhici jiray waqtiyadan oo kale tallaabooyin laga filayay buu qaaday oo ah inuu saxiixa ka noqdo fawr maabka uu xasan sheekha dagaalqaalinayo baarlamaankuna saa ku xidhmo laakiin wax laga dhageysan doono maaha waa gartay warqadii sidoo kale gudoonka uu soo saaray waxa ku jirtay in kal fadhiga lixaad la xiray markii ugu dambeysay kulanka wuxuu ahaa in hakad la galiyo taas idinku waxaan u maleynayaa marnaba ka meednaan hadlin waa ma santahay annagu in baarlamaanka la xidho waxba kama qabno markaana waan u sheegnay hore inaana waxba ka qabin xidhitaanka baarlamaanka kal fadhiga xidhitaankiisa ayaahdee
hase yeeshee dee wuxuu leeyahay si loo xidho golaa lagu xidhaa golaana lagu furaa guriga jawaari kama dhex furna baarlamaanku marka gurigiisu ka dhex yidhi baarlamaanka waan xidhay waana ka xunnahay arrinaan aad uga xunnahay weeye mana garan waayine kolley waxaan filayaa inuu go'aansaday oo qaatay arrin madaxweynaha iyo isagu ay isla soo qaadeen saan qiyaasayno oo ah in baarlamaanka albaabada loo laabo dabadeedna rowd maabka uu xasan sheekh rajaynayo in sanadka lagu shaqeeyo oo baarlamaanku uu meesha ka baxo inuu saxiixa ka noqdo in loo ballan qaaday baan rajaynaynaa sababtaasina ay tahay ta ku ijbaartay ee ku qasabtay inuu ka gudbo dastuurka xeeroosaadka baarlamaanka iyo shuruucda kale ee dalka hadda idinka guddoonkii baarlamaankaad dhalaacaynaysaan qaar ka mid a xisbiyadii iyo dadkii kale ee siyaasadda ku jira laftigooda waxay u arkeen arrinta guddoonku ku dhaqaaqay mid aan sharciga waafaqsanayn idinka laftigiina xubno kale oo baarlamaan ah oo aad u xoog badana idinka soo horjeeda oo u arka inay fikradda guddoonka uu ku dhaqaaq ay tahay mid sax ah marka sow lama oran karan kala fikir duwanaanshahaas wuxuu soo dadejin karaa road mapka iyo arrimahan hadda aad tilmaamayso waxaa la yidhi haddaad waalan tahay walaalkaabaa ku miir qaba ma filayo in xildhibaana ay aragti ku kala duwan yihiin laakiin haddii jiraan si ayna garanaynin bay xubinnimadoodii baarlamaanka u xidhayaan hase yeeshee annaga ka difaacayna in xubinnimadoodii baarlamaanka iyo xuquuqdoodii xasaanadoodii nin guddoomiyihii oo madaxweyne ay ka showreeyey uu ka qaato oo ayar intuu iska xidhay isagu saxeexada oo sanadka dhiman annaga arrintaa difaacayna xildhibaanadan 122 sheeganaya ee baarlamaanka federaalka ku jira oo qaarkood xukuumadda ay ku jiraan miyaa la oran karaa waxba kama jiraan ama tirada saxda ay sheeganayaan waa jiraan xildhibaanaha badnayn oo la abaabulay saxeexayaasha 126 tusaale kaaga soo qaado axmed aabi aadan baa ku jira axmed aabi aadan 126 inuuna ka mid ahay inuu 93 ka mid yahay adiga kalgacala markhaatiga marka waa wax wada saas asxaabta iyo inta badan la isticmaalay magacyadooda marna aanu maana aqbalaanin kamana warqabo haddana waa ogahay magacayga inuu ku jiro waa gartay laakiin arrinta rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay maxaa hadda xalku noqon karaa maxaa hadda dalkan lagu samata bixin karaa maxay rajadu noqon kartaa baad isleedahay axmedow waa mahadsan tahay sidaa wanaagsan baan u dhahayaa dalka in dastuurkiisa iyo xeeroosaadka baarlamaanka iyo shuruucda kale ee dalku leeyahay la ilaaliyo kala madax banaanaanshaha hay-adaha dastuuriga ana la dhowro dalka saasuu ku samata baxaya sida uu ku samata baxaya waa sidaas haddaan u laabano arrinta xeroosaadka marka la fiiriyo xeroosaadka dabcan mooshin noocan oo kale ah guddoonka isagoo gacanta ku haya mid kale ma furi karaa ama sida hadda uu ku sameeyo oo kale inuu sameeyo ma u ogolaanaya xeroosaadka waxa sida uu guddoonku markii ugu horreysay sheegay horta waxaa sharci ahaa mooshinka war-saxaafadeed buu soo saaray annagu maanaan ku qasbin war-saxaafadeedka uu soo saaray wuxuu ahaa inay qabteen mataqaanaa mooshin ama impeachment madaxweyne lagu eedaynayo 93 xildhibaan saxeexeen saxna uu yahay isla markaana ay sharciga horgeynayaan intaa wixii ka dambeeyey guddoomiyuhu xeer jabjab buu ku shaqaynayay xeer jabjabkana waxaa lagu shaqeeyaa markii sharci la waayo sharcina looma waayin karo